طول آدي يا أمها سنتهاي لمان مرت شرفتا كتمت ودنك سويدن مرت شرفتا كتمت وقالوا لك كلا دوني UK سيدا لندن ليستر بولتون ليفربول iyo inta kale waxaan kaloo aad u soo jeedinayaa soo qaybgalayaasha kale ee Soomaaliyeed sida waalidiinta iyo madaxdii hore ee wadanka intuu nabadda ahaa iyo madaxda hadda waxaan leeyahay u soo dhawaada magaalada Manchester gaar ahaan garoonkan oo ay leedahay Manchester City Football Academy oo ay noogu deeqeen maanta in tartankaani oo inta aragti tartan aan toos ahayn ee lagu baadi goobayo ciyaartoyda Soomaaliyeed ee tayada leh waxaan mahad gaar u soo jeedinaynaa kalaabka Manchester City tixgelinta ay nasiyeen iyo wanaaga ay noo sameeyeen iyo xusuusta ay xasuusteen Soomaalinimadeena ay nagu casuumeen garoonkooda maanta ayagoo baadi goobaya ciyaartoy tayo leh ee ku biira kooxaha kale kooxdan Manchester City ee maalqabeedka magacaasina waxay noo soo jiiday ciyaaryahanka weyn Cabdisalaan Ibrahim oo noqday Premier League oo ah the youngest player Norwegian iyo the youngest player from East and Central Africa the youngest player in Somalia and first player from Somalia in ciyaartoydii maanta ciyaartay oo under 9 ka ahaa from London ka yimid number 9 and number 10 waxaa idin sheegayaa in maanta ay qorteen Manchester City kuwa kalena haddii ay wanaagsadaan sidaas iyo silmida loo qaadan doonaa sanadka horena waxaa la qaatay wiilka Cali Afgooye aan laki waa ku xunahay sorry Manchester City ma qaadan laakiin kooxda Chelsea qaadatay waxaan rajaynaynaa insha Allah in ciyaaraha kale mar labaad la qaban doono under 14 under 8 iyo under 10 intaba waan qaban doonaa insha Allah